Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada cashirkii ugu horeeyay ee aan ku baranayno Microsoft Office. Waan kaga baranayno software-ka ugu horeeya ama platform-ka ugu horeeya oo ah Word ama Word document. Cashirka koowaad horta waxaan ku baranaynaa maxaa la yiraahdaa horta Word, maxaana loo isticmaalaa Word document. Lesson 1 waxaan ku qaadanaynaa horta Introduction to MS Word. MS Word-ka ayaan waxaan ka bixinaynaa hordhac ayaan ka bixinaynaa. Maxaa la yiraahdaa horta MS Word? What's Microsoft Word? Maxaa la yiraahdaa? Microsoft Word-ku horta waa word processing, waa document lagu shaqeysto program that can be used loo isticmaali karaa to create inaad ku abuurato professional looking document heer sare loo diyaariyay haddii aan lahayd qaab isticmaal iyo haddii aan lahayd qaab markuu qofka arko inuu la riyaaqo. Such as marka waxaa ka mid ah waxyaabaha lagu diyaariyo reports waxaa la yiraahdaa waxyaabaha meelaha laga soo aruuriyo ama xogaha la soo aruuriyay in lagu diyaariyo. Sidoo kale waxaa lagu diyaariyaa haddana resume ama resumes, waxyaabaha loo yaqaan CV-yada qofka warqadaha ka hadlayo ama documentiga qofka ka hadlayo. Sidoo kale haddana waxaa lagu diyaariyaa letters, warqadaha. Memos waa warqado ayagana laakiin waa notes yar yar oo meel la surtaa. Unused letters iyo waxyaabaha loo isticmaalo jaraa'idiyada la akhristo, usbuuclaha kuwa soo baxa, kuwa maalmaha soo baxa ama kuwa bilaha hadday noqon lahaayeen. Waayahay qodobka ku xiga wuxuu yahay starting MS Word. Sideen u bilaabayaa horta? Waxaad raacdaa steps-kan soo socda, waxaadna ka raacdaa computer-kaada. Marka ugu horeysa waxaad ku dhufataa start button-ka. Waxaad ku qoraysaa meesha start button-ka Win Word. Waxaadna ku dhufanaysaa Microsoft Word 2010. Waxaan ku dhufanayaa start button-ka. Halkaasna waxaan ku qorayaa Win Word. Waxaad aragtaa meeshaani waxaa ii soo baxay Microsoft Word. Click ayaan ku siinayaa. Sidaad hadda u jeedaan waxaa ii soo kacay Microsoft Word document ayaa ii soo kacay. Taasi waa wadada ugu horeysa aad ku soo kacsan karto adigoo short form adeegsanayo. Waxaa jirta wadooyin kale ee loo adeegsado. Wadooyinka kale waxaa ka mid ah inaad imaato blank space oo shaashadaada qayb ka mid ah, right click inaad dhahdo, kadibna aad ka doorato new, kadibna aad ka doorato Microsoft Word document. Kadibna meeshaas aad ku qorato waxaad ugu magac dari lahayd, kadibna double enter aad dhahdo soo kugu furmo. Enter-ka koowaad waa magacaad ku save garaynaysaa, enter-ka labaadna asiga ayaad ku open garaynaysaa oo waad furaysaa. Taasi waa wadada ugu horeysa. Taasi waa wadadii labaad. Waxaan rabaa marka hadda inaan wado kale aan labada hore u soo sheegnay ka baxsan aan isticmaalno. Waxaan sameynayaa computer-kaada waxaa ku taalo keyboard. Keyboard-kaas waxaad ka qabanaysaa meel ay ku qoran tahay ama key-ga lagu yaqaano Win key ama window key. Waa calaamad window ayuu u eg yahay. Waan ku tusayaa sidee u taalo keyboard-kayga ayaan ka tusayaa anigoo soo saaraya shaashada. Waxaan sameynayaa calaamadan ayaa waxaa loo yaqaanaa Win key. Calaamada iyo R ayaan isla qabanayaa adigoo hal mar qabanayo. Kow calaamada gacanta click ku sii, isla far kale waxaad ku qabataa R. Waxaa ii soo baxayo wax loo yaqaano run box. Kadibna waxaad ku qortaa meeshaasi Win Word, kadibna waxaad dhahaysaa enter. Waxaa automatically ku soo kacayo Microsoft Word document. Waayahay waxaa inoogu xig markaan soo kacsanay internet text. Sidee qoraal u soo gelinayaa Word-ka? Internet text sideen qoraal u soo gelinayaa? Marka koowaad horta soo kacso Word-kaada. Qoraal markaad rabto inaad soo geliso, weliba qoraal sample oo tusaale ah markaad rabto inaad soo geliso, laba siyaabood ayaad ku soo gelin kartaa. Marka koowaad inaad qorto is equal randy
kadibna shift qabo number 9 iyo number 0 isla qabo, bracket fur oo bracket xir, kadibna waxaad dhahaysaa enter. waxaad aragtaa hadda waxaa iisoo galay qoraal. sidoo kale waxaa jirta si kale aad kusoo gelin karto qoraal. is equal lorem ayaad qoraysaa, bracket ayaa fure, bracket ayaa xiri, enter ayaad dhahaysaa. waxaad aragtaa qoraal ayaa kuusoo galay. ama waxaad samaysan kartaa intaad adigu qoraal aad qorato aad soo gashato. waayahay qodobka ku xig wuxuu noqonayaa inaan save gareeyo. qodobka noogu xig wuxuu noqonayaa save in document, inaan save gareeyo. sideen ku save gareyn karaa marka? imise step ayaa jirta aan ku save gareysan karaayo warqadeyda ama documentigeyga? waxaa jirta 3 step aad ku save gareysan karayso. stepka koowaad waxaad ku dhufanaysaa horta file tab, waxaad kasii dooranaysaa save option, kadibna waxaad dooranaysaa documentigaada meesha lagugu save gareyn lahaa, kadibna waxaad siinaysaa documentigaada magac, kadibna waxaad ku dhufanaysaa save button. by default wuxuu qaadanayaa marka docx ayuu qaadanayaa. horta intaan u gudbin midaasi waxaan u baahanahay shaashadan inaan sharaxaad aan ka bixiyo. shaashadan preview waa inaan ka baxshaa si aan u fahmo horta meelaha tabiska loo yaqaano iyo meelaha commandiska loo yaqaano. marka koowaad waxaan ka qaadanayaa sawir si aan igu fududaato inaan idinku wada sharxo. waayahay meel walba waan calaameynaya marka aan sheegayo. qaybtani waxaa loo yaqaanaa quick access toolbar ayaa loo yaqaanaa. qaybtaas waxaa loo yaqaanaa quick access toolbar. waxaad kasoo bilowdaa geeskani ilaa geeskaasi, isla sidaas oo kaleeto geeskani ka bilow ilaa geeskaasi. dhammaan waxaa loo yaqaanaa ribbon ayaa loo yaqaanaa. dhammaan waxaa loo yaqaanaa ribbon ayaa loo yaqaanaa. kulli waxaa loo yaqaanaa marka ribbon. waaya ribbonka muxuu ka kooban yahay? ribbonka wuxuu ka kooban yahay 3. kow waxaa ugu horeeya ribbonka ka kooban yahay waxa la yiraahdo tabs. ribbonka wuxuu ka kooban yahay waxa la yiraahdo tabs. sidoo kale waxa uu ka kooban yahay groups. ribbonka wuxuu ka kooban yahay groups ayuu ka kooban yahay. 3 ribbonka wuxuu ka kooban yahay commands, meelaha amar qaata oo amar laga baxsho ayuu ka kooban yahay ribbonka. hadba 3dan aan kala tilmaamo horta. su-aasha koowaad waxay tahay tabs maxay tahay? tab waxaa la yirahdaa kow file tab, home tab, insert tab, page layout tab, reference tab, mailing tab, review tab iyo review tab. aan dhahay marka view tab. intaas waxaa loo yaqaanaa tabs ayaa loo yaqaanaa. maxaa la yirahdaa groups marka? groups waxaa la yirahdaa meel walba oo xariiqintan u dhaxayso waa group. meel walba oo xariiqintan u dhaxayso waa group. sidoo kale commands maxaa la yirahdaa? commands waxaa la yirahdaa groupka waxyaabaha ku dhex jiro ee amarka la siinayo waxaa loo yaqaanaa group ayaa loo yaqaanaa. mid walba group waxaa laga baxshaa aan la siiyaa amar. waxaa kusoo hartay marka calaamadan inta saaran. calaamadan halkan saaran waxaa loo yaqaanaa horta dialog box launcher ayaa loo yaqaanaa. group walba wuu leeyahay dialog box launcher ayaa loo yaqaanaa. halkani waxaa loo yaqaanaa title document, halka documentiga magaciisa uu kasoo muuqan lahaa. waxaa ku xigo 3dan xabo minimize, maximize iyo close. tan waa warqadaada inay hoos ay dhigto taskbarka ay ku saarto, tanna waa warqadaada inay kuu weyneyso, tanna waa warqadaada dhan inaad kansasho. calaamadan yar ee meesha saaran oo calaam su-aasha ah waa file help ayaa la yirahdaa. waxaad isticmaalaysa ayay waxay kaa siinaysaa warbixin. sidoo kale calaamad yar ayaa waxaa jirta oo meesha saaran.
Calaamadan yar waxaa loo isticmaalaa ribbonka in lagu qariyo in lagu soo saaro waxaa loo isticmaalaa ribbonka. Halkan cad waxaa loo yaqaanaa document area, meesha wax lagu qorayo ayaa loo yaqaanaa. Halkan waxaa loo yaqaanaa zoom control, kuwan waxaa loo yaqaanaa view buttons, waxaa loo yaqaanaa kuwaasna view buttons. Halkan waxaa loo yaqaanaa status bar. Status barku waxaa loogu talagalay inta page aad haysato, inta word aad qortay, iyo intaas iyo page-ka aad ku sugantahay inaad ka ogaato. Intaas marka waa overview oo aan ka bixinayna marka shaashada saad u kala fahanto markii lagu dhaho halkaa ku dhufo, halkaa ku dhufo. Waayahay marka documentiga haddaan rabo inaan save gareeyo, waxaan ku qasbanahay horta inaan ku dhufto file tab. Waatana file tab, kadib waxaan ka dooranayaa save option. Save option markaan ka doorto wuxuu ii keenayaa mail ay ugu qoran tahay save. Hadda documentiga wuu ii save gareysan yahay, waa sababta uusan iigu soo bixinin meesha save gareynta. Waxaan ku qasbanahay marka shaashad cusub inaan sameysto anigoo aan midaanan xirin. Waxaad isticmaalaysaa file ayaad ku dhufanaysaa, kadibna waxaad dooranaysaa meesha ku qoran tahay new markaan ka doorto blank document click ku sii, kadibna create. Hadda waxaan soo gelinayaa marka qoraal. Waxaan isku dayaa marka inaan save gareysto. Waxaan ku dhufanayaa file, kadibna waxaan ka dooranayaa save markaan ka doorto wuxuu ii keenayaa meesha aan wax ku save gareysan lahaa. Documentiga hadda warqadda aan save gareynayo waxay galaysaa meeshaan ay ku qoran tahay documents. Midaas waa wadada koowaad aad ku save gareyn karto. Waxaa jirta waddo labaad, waxay tahay calaamadaas yar ee meesha geeska ku qoran quick access-ka inaad click ku siiso, kadibna magacaada aad ku qorato meesha aad rabto aad dhigato. Mid saddexaad waa shortcut oo waxaad dhahaysaa control S markaan dhaho waxaan ku qoranayaa tusaale Socosit. Kadibna waxaan dhahayaa waxaad igu save gareysaa desktop-ka, kadibna save ayaan dhahanayaa. Hadda markaan iska xiro waxaad aragtaa save waatana marka Socosit Academy oo ii soo baxday warqadayda. Qodobka ku xig aan qaadanayna wuxuu yahay cashirkeena open an existing file. Adigoo failkaana ku daaran ama aad ku shaqeynayso ayaa waxaa lagu dhahay failka hore ee ninka ama bisha hore failkeeda ii fur. Maxaa sameynaysaa marka? Adigoo aadan close gareynin meesha aad ku jirto ayaad ku dul furi kartaa. Marka koowaad waxaad ku dhufanaysaa file tab-ka, kadib waxaad ka dooranaysaa open option-ka, kadibna meesha failkaada yaala ka furo, finally click open meeshaas marka oo ku furmayaan. Waxaan ku dhufanayaa marka file tab ayaan ku dhufanayaa, waxaan ka dooranayaa open markaan ka doorto kanoo kale ayaan rabaa hadda inaan furto, click ayaan ku siinayaa, kadibna waxaan dhahayaa open oo ii furmaya. waa ka aniga midkayga kale meesha ayuu yaalaa, taskbar-ka ayuu yaalaa. waa kana Socosit caadi ayuu ugu shaqeynayaa. qodobka ugu dambeeya cashirkeena maanta lesson 1 aan ka qaadanayna wuxuu yahay close, inaan xiro. waxaa jirta dhowr siyaabood ee loo xiro. siyaabada koowaad waxay tahay horta marka koowaad inaa halkaa geeska aad ku dhufato midigta qaybta kore close markaan ku dhufto hadduu documentiga kuu save gareysan yahay wuu xirmayaa, laakiin hadduu kuu save gareysnayn wuxuu ku dhahayaa save garee. anigu hadda iima save gareysano oo waxaan dhahayaa save markaan dhaho lesson 1 cashirkii koowaad, kadibna desktop-ka ayuu ii yaalaa. ma rabo aniga desktop-ka inuu ii yaalo oo waxaan dhahayaa documentska ii geey, kadibna ii save garee. waa la save garee waana la xiray. waa qodobka koowaad. labo waxay tahay file option ku dhufo, exit ka dooro, waa la xiray ayaduna. waa qodobka labaad. qodobka saddexaad sideen ku xiri karaa marka? waxaan ku dhufanayaa halkan title documentiga right click ku dul leh, kadibna close ka dhufo, wuu xirmayaa. waa qodobkii saddexaad. labada kale waxaan rabaa inaan u isticmaalo shortcut. waxaad qabanaysaa keyboardkaada Alt F4 ayaad isla qabanaysaa,
automatically wuu isxirayaa documentigii kuu furnaay. Midda shanaad aan ku darayo waxay tahay shortcut ayaduna waxaad isla qabataa alt space iyo c, alt plus space plus c, documentigaadana halkaas ayuu ku xirmay.